xog ayaa sheegaysa in dufanka ama subaga doofaarka laga isticmaalo gudaha Somaliland kuwaas oo laga sameeyay waxyaabo cabitaan ah oo bulshadu aad ay u isticmaasho laguna iibiyo goobaha ganacsiga. doofaarku waa xawayaan ama noole ay munaafacadsadaan ama dhaqdaanba dadka aan muslimiinta ahayn meesha qaar kale ay ka dhigtaan caruur ay ku lumiyaan waqtigooda inta badan lana ciyaaraan, balse taasi mid ka bedelan dadka muslimiinta ama isticmaal ba iska daayeen ma taabtaan, taasoo sababaysa in diinta islaamka ay xaaraantimaysay taabashadiisa iyo cunustiisa doofaarka. taa mid ka bedelan ayaa ka taagan gudaha Somaliland kadib markii ay soo baxday in waxyaabo laga sameeyay subaga ama dheecaanka doofaarka laga isticmaalo gudaha Somaliland si maalinle ah laguna iibiyo goobaha ganacsiga, balse aysan bulshaduba ka warhaynin waxyaabahan ay isticmaalayaan qaybo ka mid ah in ay ahaayeen oo laga sameeyay subaga ama dheecaanka doofaarka. arrintan waxaa aad u lafaguray oo ka hadlay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo ah sheekh caalim weyn bulshada Soomaaliduna aad u taqaano wacdigiisana meelo badan laga dhageysto. haddaba ila dhageysto Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haruun oo arrintan faahfaahinayo aadna ooga hadlayo una digayo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Somalilandba in ay ka digtoonaadaan cunista ama isticmaalida ama iibgeynta waxyaabaha laga sameeyay dheecaanka doofaarka. haddaba ila dhageysta Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo arrintan aad ugu dheeraaday. hargeysa gudaheeda ku arkay cunno ay ku jirto doofaarka lafiisu halka iskaga rakibmaan dheecaanka yar u dhaxeeya ku jira raashin ku jira hargeysa lagu cuno, laakiin waxa weeyaan cidna wax ma baadha, cidna waa gelatin waa maada caadi oo la wada yaqaano, waa lafaha doofaarku ama lafaha halka iskaga laalaabmaan dheecaanka yar ku jira weeyaan. waa maada ay isticmaalaan in waxa biyaha iyo waxa subaga ah inay isqabsan karaan, biyaha iyo subag way kala soocmaan marka la isku daro, laakiin ay isqabsan karaan baa loogu isticmaalaa. gelatin baa lagu iibiyaa hargeysa gudaheeda. idan waxaan odhan lahaa dadka baac mushtarkaana waa ilaahay ka cabsada oo waxay iibinaysaan hubiya arsaaq xalaala doonaysaa. waan garanayaa kolley wax badan in dadka jaahilnimo u geynayso, laakiin waxaan odhan lahaa war ilaahay ka cabsado oo idinna wax iska hubiya oo wax xalaala gada, waxa xunna dadka ka joojiya. haddaba sida uu sheekhu sheegay waxaa laga yaabaa in dadkan waxani ay u geysay jahli ama aqoon la'aan ama aqoon darro, balse laga yaabo in qayb bulshada ka mid ay ku baraarugsan yihiin arrintani. haddaba dadka gadanhayo iyo kuwa gadahaya iyo kuwa dalka soo gelinhayaba dhammaantood waxaa looga baahan yahay in ay ka digtoonaadaan waxa ay gadanhayaan, waxa ay gadahayaan iyo waxa ay dalka soo gelinhayaan sifo aysan xaraamtu ama shayga aan xalaasho u ahayn muslimiinta uusan ugu faafin gudahooda, taasoo laga yaababa inay keento. sidoo kale xukuumadda Somaliland waxaa looga baahan yahay in ay la socoto oo taxadar fara badan ka muujiso waxa dalka soo galahaya iyo waxa gudihiisa lagu isticmaalayo inuu yahay shay xalaal ah iyo inuusan ahayn, sifo shacabka ay uga badbaadaan waxyaabaha aysan aqoonta u lahayn. waayo shaygani wuxuu soo marahayaa dekada magaalada Berbera kaasoo lagu soo baarahayo laguna ogaanayo xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisa. sidoo kale waa in xukuumadda iyo shacabka ka ganacsada arrimahanba ay ka wada shaqeeyaan si bulshada ay u helaan wax xalaal ah oo aan diintooda iyo nasabiyadooda iyo sharaftooda waxba u dhimaynin.